siraaye sahalka aynu moodine saaqay bareege moogtaay siraade cashaqiina siraaye agana turaaliyo naxariisba kala tagee raxin jirtayda ku qurayxa wali dhammaantee shaariyo bilkhayrkii dumar lagala soo baxo بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن داوديال كلن وعن او وناكسن meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka fanka iyo suugaanta barnaamijka fanka iyo suugaanta waa barnaamij toddobaadkii hal mar ayaad ka daawataan stuudiyaha Muqdisho ee telefishinka Home Cable waxaana ku soo qaadanaa fanaaniinta Soomaaliyeed oo stuudiyaha aan ku martiqaadno hadba fanaankii markaasi aad xiisaynaysaan heesiis ayaa halkan ka daawataan caawa waxa nala jooga oo marti noogu ah stuudiyaha Muqdisho Akram Muqtaar Akram AK oo kamid ah fanaaniinta dambe ee Muqdisho sugan waliba kuwooda loogu jecel yahay heesaha kala duwan ee dhalintu xiiseynayaan qaada caawa ayuu stuudiyaha marti inoogu yahay aan si wada jira u soo dhaweyno Akram soo dhawow habeen wanaagsan andhawahay khatraay aad iyo aad aan ku dhawahay barnaamijka fanka suugaanta waa tahay mar kale aan kugu soo dhaweynaynaa waa habeenkii u horeysay stuudiyaha Home Cable Muqdisho aad ka soo muuqatid aad aan ugu faraxsanahay inaan ka soo muuqdo stuudiyaha Home Cable aan ahaa fanaaniintii ku hamweynaa inay ka soo muuqdaan waa tahay Akram waan ku soo dhaweynaynaa mar kale barnaamijka intaanan u gudagalin caawa barnaamijka halkan anigoo Khadra ayaa ka soo jeedinaya dhanka kaamirada barnaamijka waxaa ka hagaya Cabduqaadir Gacal isku dabridka barnaamijka waa Sakriye Furux dhanka farsamada waa Maxamed Alfis mar kale ku soo dhawaada barnaamijka fanka iyo suugaanta barnaamijka ayaan gudagalaynaa mar kale soo dhawow Akramow aye Khadra waan dhawahay barnaamijka fanka iyo suugaanta mar labaad iyo mar saddexaad aad baan inkaga mahadcelinayaa aan dhawahay waa tahay goormaad Akramo fanka ku soo biirtay oo heesahaaga aad soo bandhigtay fanka waxaan ku soo biiray 2014 dhamaadkeedii kulli 2015 ayaan soo gudagalay oo fanka aan bilaabay laakiin waan jeclaa ilaa yaraanteedii waan ku hamweynaa ilaa waqti badan laakiin shaqadiis waxaan bilaabay 2015 oo aad heesahaaga soo qaaday heesta kugu horeysay ma xasuusataa aad weynaan xasuustaa heestii ugu horeysay miraheeda bal hadaa xasuusatid xoogaa wax nooga sheeg jacaylkan wadnaha iyo waaxyaha jirkoo idin albowlaha wada ku wareegaye heestaas ay ugu horeysay waa tahay intaadan fanka soo galay maxaa ka aaminsaneed maxaase islahayd wallaahi runtii aniga fanka waxaan ka aaminsanaa wax wanaagsan waanan jeclaa fanka oo ilaa yaraanteeda waxaan jeclaa oo hobigayga ayuu ahaa fanka qofba si ayuu soo galaa kulli ani fanka waan jeclaa wanaag baan ku ogaa waanan xiisan jiray yaa garab kugu siiyay marka inaad fanka soo gasho heesahaaga aad qaado fanaan Muqdisho laga jecel yahay aad noqoto wallaahi billaahi dad badan oo xaggan aan kusoo koobi karin abwaano saxafiyiin dhalinyaro kale in badan oo halkan aan aad iyo aad uga mahadcelinayo ayaa igu soo garabsiiyay fankayga waa tahay su'aalaha iyo waliba sheekada kala dib ayaan u dhiganaynaa heesaha qaadid waxaa kamid ah hees Dahraan la yiraa heesta Dahraan miraha iyo laxanka yaas kale heesta Dahraan ereyada waxa iska leh abwan Cabdicasiis Cusmaan Dahireeto laxanka waxa iska leh aniga Akram AK oo laxmiista wata aadiya laxmiista waan isku dadayaa un ma heesta kugu horeysa laxan saartaa ما يهسي يقول رسالة حنصاري وكل حشقة هيت هسي هدايت عن قاضي هسي يقول رسالة عن قاضي أي هيت هسي يقول رسالة عن لحمية
heestaas ayay ahayd heestan laakiin dahraan erayada cabdicasiis usmaan dahreed ayaa iska leh laxanka aniga ayaa saaray muusigadana ustaad yuusuf muumin subxaan ayaa tumay ayaa iska leh dahraan waa hees jacayla dabcan oo gabar lagu ammaanay dahraan waa hees ammaan oo abwaanka ugu talagalay dahraan oo gabar waa tahay heesta dahraan aan markaan in kala baxo dib ayaan iskugu soo laabaneen xariiriyo dahabe dumar ugu filroone dawadii naftayda dahra dooqaygii xariiriyo dahabe dumar ugu filroone dawadii naftayda dahra dooqaygii runtii waad ideeqdo dumariyo habeen adun baan ku doonaa waad ideeqdo duhuriyo habeen adun baan ku doonaa adigan ku doortee kuma din karaye daa'im ha igu kaasimo adigan ku doortee uma din karaye daa'im ha igu kaasimo darmantii haweenka deganida xishoodka dadka aad ku dhaafto dog iyo ugbade darmantii haweenka deganida xishoodka dadka aad ku dhaafto daacad baan ku ahee daadihii jacayl daranyada u diid
daacad baan ku ahee daadihii jacayl daranyada u diid daranyada u diid adigan ku doortee adigan ku doortee uma din karaaye daa'im ha igu kaasimo ha igu kaasimo ha igu kaasimo adigan ku doortee adigan ku doortee uma din karaaye daa'im ha igu kaasimo ha igu kaasimo ha igu kaasimo xariir iyo dahabay dumar ugu filnooneen dahraan dooqaygiyaa tahay waa tahay aan halkaasi hisa dahraan uga gudubno adiga waxaa lagu yidhaha akram eki dabcan eki waa naanays goormay kuu baxday yaas kuu bixiye runtii inta badan dee magacii masiibo maalinay baxaan qadraay akram koley AK waxaa iigu daray minamaan saaxiibanahay oo aan aada iskugu wanaagsaneyn unbaa ila jeclaaday markaad fanka kusoo biirtay ekeeda kuu baxday nase waad ka horeysay lii bixiyey AK ay ii baxday waa naynaas ha halkaasay kaaga baxday waa tahay intaada fanka kusoo biirin waxaad tiri yaraanteydayaan jeclay fanka oo intaadan isdhihin heese laguu sameeyey agram ahaan qaad intaanan lagu dhihin heesihii aad qaadi jirtay markaas fanaankee markaas heesihiisa aad ku luuqeyn jirtay wallaahi fanaan aan ku luuqeyn jiray oo aanan jeclahay fanka inaan kaga dawdaysado cabdiqaadir xuseen mayo boonis fanaan la yiraahdo oo aan aada u jeclahay meel kastoo jooga aan salaamayo oo heesihiisana aan ilaa haatan aan dhegeysto walow aan wada jeclaa fanaaniintii hore haddana fanaanka khaasatan aan xiiseeyo aan ku dawdaysado fankiisana aan jeclaa ayuu ahaa mar walibana aan ku luuqeyn jiray heesihiisa intaada fanka markay aad saas u jeclayd oo rabtay inaad kusoo biirto wax caqabada ma kala kulantay dhanka waalidka iyo wallaahi runtii fanka haa qadraay in badan fanka caqabado badan ayuu leeyahay haddii dhinac waalid haddii dhinac fanka u ahaan lahaa laakiin waxaa waaye qof waliboo dadaalo dee hamigiisa oo ka miro dhalin karaa haa caqabad waliboo fanka iga soo wajahday waxaan ahaa dee mid u sabra kana miro dhaliya dee fankiisa waa tahay heesahaad qaadid dabcan way ku jiraan aan filayaa heesa jacayla ama daadis siday u yaqaanaan soomaalida in badan walow aan jaceylka u badanahay heesihiga ay jaceylka u badan yihiin khaasatan calaacalka kule anigi ma calaacalo laakiin erayada markaas fanaanka markaas calaacalaya dadka ma fiirinaya inta badan abwaanka hadduu leeyahay heestii hadduu qof kale leeyahay fanaanka qaadaya keliya soomaalida waxay ku caanbaxday dee ma isweydiiyaan fanaankan heesta wuu soo gudbiyaa oo bulshadu ka laakiin inta badan waxay u badanta markaad hees calaacal soo qaado in la yiraahdo fanaankaas soo calaacalay dee xataa arrin aadan rabin even markaad aad gabar hees kula luuqayso aad ku calaacalayso haddaad laba hees kula soo luuqayso waxaa lagu leeyahay wuu jecel yahay saas bay ku samaysay xitaa qiso aadan yaraanta ha laakiin dee fanaanka wuu ka turjumaa un dee fanaankii waa laga dhaxalaa isagii maaha laakiin way jiraan fanaan isaga heesi qiso ku dhacday ka hadla way jiraan fanaaniin in badan xitaa aniga qiso igu dhacday ha oo aan ka heesi jirtaa oo heesaad ka samayso oo ka qaaday abwaankaaga sameeyey aad iyo aad waa taa heesta xigta caawa aad noo soo qabanaysa heesta xigta aan noo soo qabanayo laabraac ayaa la yidhaahdaa ereyada waxaa iska leh cabdiqaadir halaqay laxanka waxaa saaray islaaniga akram muusigadan ustaadkayga noolayaha fanka soomaaliyeed iyo sumami subxaanya ayaa saaray heesta laabraac laabraac maxay tahay marka ma jacayl baa ma ammaan baa laabraac waa jacayl dee naf wax jecel ayay ka hadlaysaa waa calaacal dabcan
waa tahay heesta laabraac markaan iyo akrameeki كل حد سدايو لقويدي أنتو كل ذا تانا حي نفل رجع عيلكو كل حد سدايو لقويدي أنتو كل ذا تانا حي lan marero la asara kutalan sida lan marero la asara kutalan legleganaya sida lan marero la asara kutalan sida lan marero la asara kutalan legleganaya laabta ku raacdo qalbiga kuulilaahiya macanka laabanayne adna igu lamaano adna igu lamaano
lilaahiya macan kalaabanayne adna 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 igu lamaano tahay heestaasi aan halkaasi kaga gudubno laabraac barnaamijka fanka iyo sugaanta ayaad weli daawanaysaan daawadayaal istuudiyaha muqdisho ee telefishinka hon cable ayuu inkaga imaanayaa bartanka ayaan kaga jirnaa heesihii macaanaa ee fanaanka akram eke weli farag kama qodna ayaan leenahay akram waxaa jirtaa tiray hees adiga kugu dhacday qiso ahaan kaa turjumayso aad qaaday way jirtaa khatray hees aniga qisadeeda siday u dhacaysay qisada haddii aad suurtagal tahay nala wadaagi kartid wallaahi heestaasi waxay ka hadlaysaa anigoo dee gudbinaya cabashadeydii iyo dhibkan qabay ama dhibaatadan u maray jaceylkayga haddana dee anigiioo ka bogsooday jaceylkayga ka tanasulay dee oo jacaylka ma ku guuldaraysatay haa guuldarada xanuunkeedii ka turjumaysaa haddana waa ka bogsatay anigiioo u baahan dee anigiioo u dhib qaba haddana anigoo ka bogsaday anigoo u sheegaya dhibaatada iiga tagtay halkay iga raacday iyo kadib inaan ka bogsooday oo aan ka maarmay miraha bal wax naga maqashay haddaan dayax noqon lahaa daruuraha dhaafilaa damicii ku hungoobayo dibnaha adigayga xiraa waa tahay aad iyo aad miraha ayaa iska lahaa marka miraha waxaa iskale abwaan aad aan u jeclahay ka mid ah abwaanada fankayga igu soo garab qabtay abwaan axmed nuur abba laxanka waxaa isku dayay aniga akram eke ah muusigada waxaa tumay saaxiib igu qaaliya amsalyare musishinkayga ayaa tumay waa tahay heestaasi qisada gaarka u ah akram eke bal aan wada daawan damicii ku hungoobayo dibnaha adigayga xiraa haddaan dayax noqon lahaayo daruuraha dhaafilaa damicii ku hungoobayo dibnaha adigayga xiraa adaa hadal dabacasano ku diirsada igu yiraa haddana idagaalayo dabka hoos iga shidaa ku diirsada igu yiraa haddana idagaalayo dabka hoos iga shidaa darada cashaqiyaha sawka ibaadayayo dawaan ku bogsooday iyo dabiib qalbigaygu helay darada cashaqiyaha sawka ibaadayayo dawaan ku bogsooday iyo dabiib qalbigaygu helay
jacaylkaygii dihnaa markaan ku durduuriyaa mid kale iga dooratay masoo daasho ma timi jacaylkaygii dihnaa markaan ku durduuriyaa mid kale iga dooratay masoo daasho ma timi daahilka markii aan qabay ducbaadka wareegatay doondoonistu waa maxay ma durbuu nafsigii ku helay daahilka markii aan qabay ducbaadka wareegatay doondoonistu waa maxay ma durbuu nafsigii ku helay darada caashaqiyaha sawka ibaadayayo dhawaan ku bogsooday iyo dabiib qalbigaygu helay darada caashaqiyaha sawka ibaadayayo dhawaan ku bogsooday iyo dabiib qalbigaygu helay waa tahay dawo ku bogsoodiyo dabiib qalbigaygu helay dabcan waxaan filayaa inaad ka gudubtay marxaladii markaas aad ku sugnayd oo wax ku dabiiba aad heshay dabcan inaan ka bogsoodo kuma soo bandhigin heesta inaan helay waxaan kaga bogsoodo laakiin aad iyo aad inaad bedel kheyr qaba heshidna waan kuugu duceynayaa Akram Eke halkuu ku dhashay halkuu wax ku bartay Muqdisho amase meel kale waxaan ku dhashay Muqdisho waxaan kusoo barbaaray kusoo xabartay Ethiopia oo anigoo yar baan xaggan ka tagay laakiin halkan ku dhashay maya weligeyba fankeyga waxaan jeclaa inuu Muqdisho ka bilowdo uuna ka bilowday oo dee kuma fikirin inaan meeshaan ku noolahay ka bilaabo fankeyga oo hadda fanaankii baa tahay waa tahay heese kala duwan waad qaaday calaacal jacayl ammaan intaasoo hees marka la isku keeno heeste is leedahay tanaa ka xulanaya macnaha tanaan u jeclahay iyadoo aad wada jeceshaan ognahay haddana halkamada ugu jirta والله heesayga waan wada jeclahay heestaan ugu jeclahay waa hees naruuro la yiraahdo ustaadkayga macalinkayga fanka ayaa la xameeyay oo muusigadeeda tumay waa hees oo wiil saaxiibaan ahay qiso ku dhacday ka hadlaysa oo uu aad u careysan yahay ku daadinayo heesaas ayaan heesayga u jeclahay oo karbaashka ah waa tahay heesaha noogu talo gashan bay ka mid tahay waa tahay miraheeda maxaa ka mid ah naruuroy kuma ilaawo qalbigaad ku nagatay heedhe adaa nabar ii damqaayo xusuus uga tag naftayda waa tahay heesta naruuro markaan qaybihii dhexe ee barnaamijkan waa isla soo gaarnay daawasho
uga tagay naftayda nasiib daro caashaqayni naxuus adiga ka yeelo intaad ninka layga raacday intaad ninka layga raacday ku naaloonaya guushee nasiib daro caashaqayni naxuus adiga ka yeelo intaad ninka layga raacday intaad ninka layga raacday ku naaloonaya guushee inaad noloshayda wiiqdo naanaab iga dhiga jacaylku inaad noloshayda wiiqdo naanaab iga dhiga jacaylku yee hadday kula noqotay huuno naftuna marun bay godaaye nafsiga nafsiga adiguna adiguna ururso nafsiga nafsiga adiguna adiguna ururso inaad noloshayda wiiqdo naanaab iga dhiga jacaylku inaad noloshayda wiiqdo naanaab iga dhiga jacaylku yee hadday kula noqotay huuno naftuna marun bay godaaye nafsiga nafsiga adiguna adiguna ururso nafsiga nafsiga adiguna adiguna ururso anoo nafta kuu huraayo dhaha kugu nuursanayo adaan idarkayga beensho jacaylkaygii nusqaanshe anoo nafta kuu huraayo dhaha kugu nuursanayo adaan idarkayga beensho jacaylkaygii nusqaanshe niyad kuma hayo kale intan ku nuglaado naq iyo roob kuma leeyo naq iyo roob kuma leeyo nolol kula qaybsamaayo haddana niyad kuma hayo kale intan ku nuglaado iyo roob kuma leeyo iyo roob kuma leeyo nolol kula qaybsamaayo inaad noloshayda wiiqdo naanaab iga dhiga jacaylku inaad noloshayda wiiqdo naanaab iga dhiga jacaylku yee hadday kula noqotay huuno naftuna marun bay godaaye nafsiga nafsiga adiguna adiguna ururso nafsiga nafsiga adiguna adiguna ururso waa tahay nafsiga adiguna ururso oo keligeed bay urursanaysaa nafsiga dhan waa tahay ayadaa galabsatay micnaha markii fanka laga tago wiil dhalinyaro aad tahay inta badan dhalinyarada waxay xiiseeyaan cayaaraha adigu cayaaraha ma xiiseysaa kooxdee taageertaa aad iyo aad si fiican ma kala garanayo waan kula doodi lahaa waa tahay qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay heesta kale ee caawa dadweynaha kaa daawanaya istuudiyaha muqdisho ee telefishinka hoonkeeba aada u soo qaban lahayd maxay tahay heestaan usoo qabanaya waxaa la yidhaahdaa gambo gambo ها وهيس أمبان ميا جنبه وحي هدية
habluhu xirtaan gambo haa okay hay ayaa micnihii gambo kaama reebteen haa dumarka micnaha haye waa hees amaan loo gambanayo maya waa hees amaan ah ereyada waxaa iskale abwaan keyga qaaliga dee abwaan axmed nuur abba laxanka kolley anigun baa isku dayay oo saaray heesahaaga inta badan laxanka adigaa saartay laaxiyadan isku yara wanaagsannahay ma gebi ahaan baad saartay mise hal iyo labo wallaahi heesahayga inta ugu badan anigu ayaa laxankooda iskala laakiin way jiraan heeso kaloo aan qaaday laxmadooda leeyahay laakiin heesaha waayahan dambo inta badan aniga ayaa laxankooda leh marka ereyada waxaa iskale abwaan axmed nuur abba saaxiibkayga marna abwaankayga laxanka anigaa iskale muusigada saaxiibigu qaali amsaliyara ayaa tumay codkana anoo eke ahmaya waa tahay markaana heesta gambo iyo akram eke
heestaasi aan halkaasi ku dhaafno daawadayaal barnaamijka fanka iyo sugaanta ayaa daawanayseen istuudiyaha muqdisho ee telefishinka home cable ayuu kaga imaanayaa habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay qaybihii u dambeeyay ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadiisii akram barnaamijka maxaa kusoo gabagabaynaysaa maadaama daawadayaal fara badan ay kaa daawanayaan shaashada home cable waxaan kusoo gabagabeynayaa salaan aan u gudbinayo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay kaga nool yihiin dunida khaasatan familkayga walaalahayga asxaabtayda dee macallimiinteeda abwaanadeyda dadka fanka garabka igu soo siiyay saxafiyiinta igu soo garab qabatay fanka waan salaamayaa dee inta maqalkayga taqaano sidoo kale waan salaamayaa aad iyo aad anagana waan ku salaamaynaa waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga aad noo soo hortay heesaha quruxda badan leh barnaamijka quruxda badan leh aan caawa halkan ka tabinaynay waan kaaga mahadcelinaynaa kun iyo kow jeer oo aad ku mahadsan tahay intaasna daawadayaal caawa waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka fanka iyo suugaanta anigoo Qadra Cabdi Cali ayaan halkan barnaamijka alaaba idinkaga soo jeediya dhanka kaamirada waxa uu ahaa Cabdiqaadir Gacal isku dabaridka barnaamijka waa Sakriye Furux dhanka farsamada barnaamijka waxa uu ahaa Maxamed Alfis intaan barnaamijka xiga ku kulmeyno hadduu rab raala ka noqdo aniga Akram AK waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka bye bye